kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedka Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbino wararka iyo warbixinada la xiriira taageerada howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM uu siiyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Ku soo dhawaada qodobada wararka ee barnaamijka Hiil Walaal. AMISOM oo bilaabaysa mashruuc dayactir iyo dib u habeyn ah ee wadada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. dadka degan magaalada Dooble ee koonfurta Soomaaliya oo ciidanka AMISOM ee Kenya ka helay daaweyn lacag la'aan ah iyo saraakiisha sarsare ee laamaha ammaanka Soomaaliya oo qaadanaya tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha. howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa magaalada Dooble ee dowlad goboleedka Jubbaland ka bilaabay mashruuc lagu dayactirayo wadooyinka magaalada Dooble ee gobolkaasi Jubbada Hoose. Mashruucan ayaa qayb ka ah howlaha ay madaniga iyo militariga sida wadajirka ah u qabtaan ee u dhaxeeya AMISOM iyo maamulka deegaanka, waxaana la filayaa in uu xaqiijiyo ujeedooyinka loo dejiyay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. taliyaha qaybta labaad ee Midowga Afrika ee AMISOM Sareeya Guute Dickson Ruto ayaa sheegay in tani ay gacan ka geysan doonto dib u soo celinta amniga iyo isku socodka gaadiidka. The purpose of this exercise is to fulfill the AMISOM CONOPS 2018-2021, which is in line with the Somalia Transition Plan, whereby we are mandated as AMISOM to secure the key population centers, and Dooble is one of the key population centers that we are currently securing. And we cannot secure the population center if the roads and the infrastructure is really in bad shape. ciidamada AMISOM waxa ay sidoo kale qorsheynayaan in ay sugaan wadooyinka muhiimka ah ee ay sahayda soo marto iyo xarumaha kale ee muhiimka ah ee ku yaala banaanka magaalada Dooble. waa kan mar kale Sareeya Guute Dickson Ruto oo ka hadlayo arrimaha sugidda amniga ee wadooyinka. We are trying to make sure that the infrastructure, particularly the roads within Dooble, are passable. Secondly, we will proceed to open up the MSRs, which is also, those are the main supply routes outside Dooble, leading to other major population centers. Once we are through with Dooble town, we will now proceed to other major population centers within or linking Dooble. Siyaad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha magaalada Dooble ayaa ammaanay howlaha Midowga Afrika ee AMISOM ee aas-aasiga ah, isagoo xusay in dayactirka wadooyinka iyo hirgelinta mashruucanba uu bilowday waqtiga saxda ah. horaan codsiyo ugu geysanay in ay bulshada wixii ay u qaban karaan ay u qabtaan, run ahaantii aad bay nooga aqbaleen. maanta waad arkaysaan AMISOM waa ay soo baxday, waxayna ku sugan tahay magaalada Dooble gudaheeda. waxay qabanaysaa maadaama xilli roob lagu jiro, waxay qabanaysaa goobihii biyaha ay fariisanayeen yay qabanaysaa. waad u jeedaan gaadiidkeedii dhammaan waa ay joogaan. godadkii baan hadda gacanta ku haynaa, godadkii baan buuxinaynaa. innaga ka maamul ahaan fikirka innagaan iska lahayn, codsi aan u geysanna ayay ajiibeen. run ahaantii maadaama aan iska kaashanayno nabadgelyada, waad ogsoontiin AMISOM waxay u joogaan deegaanadan inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed. isla mar ahaantii mashruucan waa mashruuc garab socdo oo mashruuc horumarineed waaye. insha Allah waxaanu jecelnahay inaanu ku guulaysanno, tilaabo fara badan aanu qaadi doono. dadka ku nool magaalada Dooble ee koonfurta Soomaaliya ayaa helay daaweyn lacag la'aan ah oo ay ka heleen ciidamada Kenya ee ka tirsan kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. militariga Kenya ayaa xarun daaweyn lacag la'aan bixisa ka hirgeliyay gudaha magaalada Dooble ee koonfurta Soomaaliya. mashruuca caafimaadka ee bulshada ayaa ku soo beegmay bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan. adeegyada caafimaadka bilaashka ah ayaa ah mid loo fidinayo bulshada ku nool aagaga ay ka howlgalaan Midowga Afrika. ugu yaraan 200 oo qof oo ka mid ah dadka deegaanka magaalada Dooble iyo tuulooyinka ku hareeraysan ayaa helay adeegyo bukaan socod oo ay ka mid yihiin baaritaano, daaweynta cudurrada guud, daawooyin loo qoray iyo talo bixin caafimaad. Siyaad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha magaalada ayaa cadeeyay heerarka sare ee cudurrada bulshada dhexdeeda ah, isagoo sheegay
in baahida loo qabo adeegyada caafimaadka dadweynaha, wuxuuna ku booriyey AMISOM in ay kordhiso adeegyada caafimaadka ee dadka ku nool magaalada Dobley. sida aad la socoto dadweynuhu waxay u baahan yihiin wax alla wixii caafimaadkooda ah, hadday tahay operationnada dadka ama jaba ama haweenka uurka ah oo dhali waayey, ama hadday yihiinba ilmaha ka soo bixi waayey muxuu ay sheegeen caloosha hooyadooda, sida aan marka horeba iray haweenka dhali waayey, hadday yihiin waxyaabaha burada ama dadka unuqda ama caloosha ama wadnaha kaga yaallo. run ahaantii baahidu waa wax joogto ah. runtii waxaan jeclahay AMISOM wax alla waxay ku dhaanto degmada xagga caafimaadka waxaan doonaynaa inay ummadda ka caawiso. Gaashaanle sare John Manal oo ah taliyaha isbitaalka AMISOM ee heerka labaad ee magaalada Dobley ku yaala ayaa hogaaminaya kooxda militariga ah ee sameysay daaweynta lacag la'aanta ah. waxa uuna sheegay in xarunta caafimaadku ay awood u siisay ciidamada AMISOM ee Kenya in ay daaweeyaan dadweyne bukaan socod ah oo u baahnaa daryeel caafimaad. kooxda waxaa sidoo kale ay ku wareejisay daawooyin iyo qalab caafimaad maamulka isbitaalka guud ee Dobley. We have actually come to give out what we can give today. We've had a number of public members who have come, and already our statistics is showing that over 200 members of the public have benefited from this. Manal ayaa sidoo kale waxa uu ka codsaday bulshooyinka deegaanka in ay nabad buuxda ku baaqi ahaadaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. waajib ayay ku tahay dadka muslimiinta ah in ay ilaaliyaan salaada, muhiimna ay tahay in laga fikiro iyo taageerida kuwa saboolka ah iyada oo loo marayo falalka samafalka. My plea to our brothers and sisters who are Muslims, Ramadan is a holy month. Let us keep peace and let's remain peaceful during this month and ever and forever. Maxamuud Cabdulqaadir Salaama oo laba caruur ah oo uu dhalay ay heleen daaweyn ayaa u mahadceliyey ciidamada AMISOM ee ku howlan bixinta adeegyada caafimaad ee aadka ay bulshada ugu baahan tahay. laba ciyaal baa iga xanuunsanayeen, Aamin Maxamuud iyo Xamsi Maxamuud Cabdiqaadir. daawo aad iyo aad u fiican baa liiga siiyey. haddana waxaan rabaa inaan ciidaheeda u laabto. waana ku mahadsan tahay AMISOM. Axmed Nuur Sheekh Cali bukaan kale oo helay daawooyinka ayaa ka mahadceliyay adeegyada caafimaad ee uu ka helay xarunta caafimaad ee magaalada Dobley. waxaan galay shaybaadh bilaasha oo aanan ka helaynin macnaha magaalada gudaheeda. waxaa la isiiyey dawo macnaha bilaash oo aanan meel macnaha aanan ka helaynin magaalada. marka alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan macnaha u soo dhaweynayaa inay weliba noo sii macnaha naloo sii laabaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa. saraakiisha amniga ee Soomaaliya ayaa waxa u dhamaaday barnaamij tababar oo 4 maalmood qaatay oo ku saabsanaa xuquuqda aadanaha si loo xoojiyo daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka nidaamka sharci fulinta dalka. tababarkan oo ay soo qaban qaabisay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed, waaxda socdaalka, hay'adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA iyo wasaaradda amniga gudaha. wasiir ku-xigeenka amniga gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdinaasir Siciid Muuse ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay marka hore in la helo hay'ado ammaan oo xoog badan oo ka dhex jira hay'adaha dowladda ilaaliyana xuquuqda aadanaha. For the past 4 days took a very important lesson for this training and presentation about how to protect civilians and their properties, and how to be uphold human rights, and how to be perceive the Somalis penal code and the rule of law. I would like to thank the AMISOM for their sacrifice to the Somalis people, and especially I would like to thank the AMISOM police for this training. AMISOM ayaa dardar gelinaysa tababarka saraakiisha amniga qaranka si ay si habboon ugu diyaariso uguna dedejiso sidii ay ula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda ammaanka ka hor inta aan la gaarin bixitaanka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee sanadka 2021. Cabdinaasir Siciid Muuse ayaa ku dhiirigeliyay ka soo qaybgalayaasha in cilmiga ay barteen ay la wadaagaan saaxiibadood si loo horumariyo sareynta sharciga loogana tixgeliyo dalka xuquuqda aadanaha.
isagoo isla goobta ka hadlay ayuu kusimaha isuduwaha tababarada ciidanka booliska ee AMISOM gaashaanle sare Francis Ndema xusay in tababarka wax badan ka tari doono sidii ay hay'adaha ammaanka u ilaalin lahaayeen sareynta sharciga inta ay ku guda jiraan gudashada howlahooda maalinlaha ah. The course was aimed at enlightening officials from different law enforcement agencies in Somalia on international human rights standards that are relevant to law enforcement to enable them effectively uphold and protect people's rights, and therefore enhancing transparency and accountability on their actions. As AMISOM police, the implementation of a course like the one we are witnessing is closure today is a clear demonstration of our continuous efforts in executing our mandate of supporting law enforcement agencies in Somalia, and more specifically the police, to take a leading role in maintaining law and order. Ndemba oo sidoo kale uga mahadceliyay wasaaradda amniga gudaha qabanqaabadii ku aadanayd tababarkan ayaa hoosta ka xariiqay dadaalka AMISOM ee ku aadan kor u qaadida wacyiga hay'adaha ammaanka ee Soomaaliya ee xilliga kala guurka. Kasoo qaybgalayaasha ayaa sidoo kale u mahadceliyay tababarka ballan qaadayna in ay ku dhaqmi doonaan cilmiga ay ka heleen tababarkan. halkan waxaan ku qaadanay training aad u muhiim ahaa oo muhiimad gooniya u lahaa hay'adeena. 4 bari oo joognana waxaan baranay waxyaalo kala duwan oo la xiriira human rights-ka iyo xuquuqul insaanka. aadaanan ugu faraxsanahay in uu maanta noo soo gabagaboobo. Maamulka Hirshabelle ayaa daahfuray wajigii labaad ee qorista ciidamo boolis ah. Taliyaha ciidanka booliska ee AMISOM ee Beledweyne gaashaanle Philip Dentim ayaa sheegay in tani ay fursad weyn u tahay dhalinyarada deegaanka. We have very good numbers of people right now. Very importantly, we have some very good percentage of women ably represented here, and they are going in for medicals, medical checkup, and very good profiling system which is being done by the AMISOM police. And we have also very good instructors who have been talking to them on what to expect during the course of the recruitment exercise. And I think overall the system is actually working very well, and we hope to leave a befitting police service or a police force for the people of Somalia. Wajigan qaadashada ciidanka booliska ayaa lagu qoray ilaa 200 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah, iyadoo 125 ka mid ah ay ka socdaan gobolka Hiiraan, halka inta kalena ay ka yimaadeen gobolka Shabeellaha Dhexe. Hirshabelle waxa ay qorsheynaysaa qorista ilaa 800 oo ciidamo boolis ah, mashruuc ballaaran oo ay ka taageerayaan AMISOM, Midowga Yurub iyo waaxda horumarinta caalamiga ah ee UK. Qorista ciidamadan ayaa imaanaysa bilo kadib markii la qoray ciidankii ugu horeeyay ee boolis ah, kuwaas oo ilaa iminka la kala geeyay goobo kala duwan oo Hirshabelle ah si ay u sugaan sharciga iyo kala dambeynta. Master Philip Dentim ayaa xusay in diiwaangelinta iyo tababarka ciidanka looga gol lahaa aas-aaska ciidan boolis oo ah kuwa awood u leh hanashada amniga deegaanada kadib markay AMISOM baxdo. Sida uu qabo taliya Isaaq Cali Cabdulle, taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Hiiraan, ciidanka laguma soo xulin oo keli ah hanaan qabiil iyo mid deegaan, balse waxaa sidoo kale lagu soo xulay aqoon iyo tayadooda. waa ciidan ka kooban gabdho iyo wiilal. waxaan ku soo xulnaa aqoon. marka hore waxaa loo qeybiyey beelaha degan si ay u noqdaan ciidan oo federaal oo aan hal beel ahayn. beelaha degan gobolka Hiiraan iyo degmooyinka ayaan ka soo xulaynaa. hadda maanta ciidanka meeshan aan ku diyaarinayno wuxuu ka kooban yahay 3 degmo, waa Beledweyne, Matabaan iyo Maxaas. Ciidankan cusub ayaa ku faraxsan in ay ku soo biiraan ciidamada booliska iyaga oo sheegay in ay diyaar u yihiin tababarka muddada 3 bilood ah ee AMISOM bixinayso. waxaan ku qanacsanaynaa maanta ku soo biiro ciidanka booliska loo qaadanayo dowladda Hirshabelle. aqoontayda inaan gobolkayga wax uga qabto sidii heer sare loo gaarsiin lahaa
xirfadan bartana inaan wax ugu taro dadkayga iyo bulshadayda waana ku qanacsanahay wax dhibaato aan kalama kulmin waana ku faraxsanahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ciidanka booliska ee hadda la qorayo magaalada Beledweyne oo uu leeyahay maamul goboleedka Hirshabelle sababta ugu dhalisay wax kale ma aha waa deegaankan oo u baahan in la helo ciidamo boolis oo tababaran kuwaasoo waxgal u ah bulshada maadaama ay bulshadii baahiyo badan ay qabaan taas ayaa koow ah waxay ugu dhaliyay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay insha Allah tacaala waxaan aaminsanahay in deegaankan isbedel aan la imaan doono insha Allah tacaala Yuusuf Maxamed ayaa isna ku daray in ay sharaf weyn u tahay in uu bulshadiisa ugu adeego boolisnimo waxaan ugu dhaliyay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan waxa weeyaan aniga waxaan ka mid ahay dadka xirfadlayaasha ama jaamacadaha ka baxay ee magaalada Beledweyne marka waxaan arkay baahida loo qabo boolis xirfad leh ka shaqeeya bulshada arrimaheeda marka maadaama anaga aan nahay dad wadaniyiin ama u dhashay dalka waxaan wax u baranay waa dalka iyo dadka marka xirfadaan baranay in aan ku biirino booliska si aan wax ugu qabno bulshada Freedom is the element missing from our home. AMISOM ayaa haweenka Soomaaliyeed u sameysay wacyigelin ku aadan hanaanka dib u eegista dastuurka dalka. Kulan uu soo qaban qaabiyay Midowga Afrika ee AMISOM ayaa ilaa iyo 25 dumar ah oo laga soo kala xulay guud ahaan ururada bulshada rayidka ah ee dalka lagu wacyigeliyay sidii ay door muuqda ugu lahaan lahaayeen hanaanka dib u eegista dastuurka ee ka socda dalka. iyada oo qayb ka ahayd kulanka Mrs. Mana Ahmed oo u qaabilsan AMISOM arrimaha jinsiga ayaa hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in la fahmo dib u eegis lagu sameeyo dastuurka hab ogolaanaya in ay dadweynuhu iyo haweenkuba ay qayb weyn ka noqdaan. We were very happy to come together and see with the Ministry of Constitutional Affairs how the civil society can contribute to the review of the Somali Constitution. It is very important to hear their voice, their challenges, their view on certain gender provisions in the Constitution. They are also very eager to contribute to make sure that women representation, particularly in the political process, will be written in the Constitution and not limited to 30%. They really believe in having a 50% representation. Kaafiya Cabdullaahi oo ah la taliyaha arrimaha jinsiga ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee Soomaaliya ayaa ka soo qaybgalayaasha ku wargelisay halka uu maraya hanaanka dib loogu eegayo dastuurka ku-meelgaarka ah ee dalka ee qabyo qoraalkiisa la qoray 2012. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa daahfurtay dib u eegista dastuurka bishii May ee sanadkii 2018 iyada oo la filayo in dhammaadka sanadkaasi ay Soomaaliya yeelan doonto dastuur cusub si loogu gogol xaaro doorasho hal qof iyo hal cod ah oo dhacda sanadka 2020. Kaafiya ayaa gabagabadii ku tilmaamtay kulanka mid dhiirigelin leh isla markaana aad muhiim u ah. waxaan ka hadlaynay strategies and advocateska oo dumarka sida uu qayb gal lahaayeen dastuurka sida uu ogaan lahaayeen roolkooda sida uu ogaan lahaayeen dutieska dastuurka oo saaray iyo rightskooda waxyaabo badan meesha maanta ku falaqeynay. Ilhaan Maxamed Xasan oo ka tirsanaa Midowga Haweenka Aqoon-yahanada ee Soomaaliya ayaa ku dhiirigelisay in haweenka ay bartaan qodobada dastuuriga ah ee quseeya arrimaha haweenka. halka waxa uu maanay haweenka iyo qodobada saameynta ku leh dastuurka ku jira wax badanna waa looga hadlay si aan u ogaano dadka ogeyn oo ku baraarugeen kuwa ogaana way la sii socdeen hawsha meesha ay marayso. What we want from the new constitution is to represent both and not only just grant them 10 and 30% but also more. Since we represent majority of the population, we are striving to get more representation in politics. ugu yaraan 45 xubnood oo ka kala yimid ciidanka xoogga ee dalka Soomaaliya, booliska iyo AMISOM ayaa Muqdisho ku kulmay muddo hal toddobaad ah si ay tababar u siiyaan xubnaha qaabilsan wada shaqaynta ciidanka iyo shacabka. Tababar xirfadooda kor loogu qaadayo ayaa dhanka kale shacabka ugu dhiirigeliya sidii ay uga hortagi lahaayeen khatarta argagixisada una ciribtiri lahaayeen fididda fikirka xagjirnimada ah. Sareeyo guud James Lakara ku-xigeenka madaxa howlgallada ciidamada AMISOM ayaa hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in laga gudbo gudashada ciidamada ammaanka Soomaaliya ee waajibaadka aasaasiga ah oo keli ah isla markaana ay ciidamadu ku wajahaan bulshada ay u adeegaan hanaanka wada shaqaynta ah. A lot of CIMIC related activities are required. Incidentally, this is
an area where there is a very big gap. I urge you to exploit this opportunity to the fullest and harness the tools that you will require as civic officers and operators in delivering on your tasks. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Hiil Walaal oo aan idinku soo gudbino wararka iyo warbixinada hawlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ku taageero dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed.